salaama daawadayaal halkani waa channelka wararka ee warqaad news tv ku soo dhawaada tabinteena habeenimo qodobada ugu waaweyn waxa qaybka shirka golaha wadatashiga qaranka oo maalintii afaraad galay khilaafyo ka dhex taagan madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Roble qodobo door oo la isku mari laayahay ayaa jiro halkan ayaan kugu soo gudbi doonaa dibadbax weyn oo ka dhici rabay wadooyinka muhiimka ah ee Muqdisho maanta wasaaradda amniga joojisay iyo hotel kamida kuwa Muqdisho lagu qabtay barnaamij lagu taageerayo farmaajo maamulka Puntland oo ku guuleystay kala joojinta maleeshiyaad ku dagaalamaya deegaanada ka tirsan Puntland ee Nugaal iyo Sool u dhaxeeyo iyo Kenya oo heegan buuxda uga jirto weerar kaga yimaada al-shabaab qodobada iyo qodobo kale ayaan ku tabi doonaa diyaar garooba warkeena mar kale kulan wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galno fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysa noo soo boqoto nagu soo biro page-kan YouTube-keena rukumo si aad u hesho xogaha aynu halkaan ku baahino haddii aynu ku hormarno shirkii golaha wadatashiga qaranka ayaa maalintii afaraad galay kaas oo ka socda caasimadda dalka inkastoo maanta warar soo baxay ay sheegeen in lagu kala tegay balse la waraadiyo lagu kalsoon yahay iyo xukuumadda ayaa sheegay inuu shirka wali socdo balse ay tahay wararka baraha bulshada lagu baahinayo kuwa lagu qarqargelinayo ee ku saabsan inuu burburo shirkaasi sidoo kale afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macalimow ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook-giisa ku xaqiijiyay inuu shirka wali socdo isagoona kaga digay dadka wararka aan wanaagsaneyn baraha bulshada ku faafinayo shirka golaha wadatashiga qaranka waxa uu galay maalintii afraad hadda waxa socdo dood adag madaxdu waxay yeelanayaan qodobo quseeyo hufnaanta doorashada iyo amniga in si qalbi furnaan loo doodo waxa ay dacwo u tahay xal kama dambayso oo laga gaaro qodobada lagu kala aragti duwan yahay ayuu yiri Macalimow mar kale kulamada madaxda waa kulamo guud iyo kuwa gaara dadka baraha bulshada xumaanta ku warinaya waa in laga waantoobaa wararka aan bulshada u roonayn dhagahooda ayuu mar kale ku daray si kastaba waxaa jira cabsi ah in shirku uu burburo iyadoona qodobada la xiriira amniga uu yahay qodobka ugu adag ee dhinacyada shirka hor yaalo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed Qoorqoor iyo Lafta Gareen ayaa ku xiran farmaajo iyagoona sheegay inay diidan yihiin in amniga dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Roble Lafta Gareen ayaa la sheegay inuu yahay kan ugu xaq jirsan marka uu noqoto arrinta amniga isagoona ku hanjabay inuu shirka isaga bixi doono gabi ahaanba kaas oo ka soo horjeeda arrinta la xiriirta amniga lagu wareejiyo xilligan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble shirka oo maalintii afraad galay maanta waxa socdo kulamo gooni oo dhinacyada kala qaateen iyadoona xal rasmiya iyo sidoo kale warmurtiyeed lagu mideysan yahay wali la gaarin madaxda Jubaland iyo sidoo kale Puntland madoobe iyo Dani ayaa ra'iisul wasaare Roble xilligan la garab taagan iyo garab uu ka helay midowga musharaxiinta si guud amniga dalka lagu wareejiyo halka Lafta Gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed Cali Guulaaw madaxweynaha Hirshabelle Qoorqoor madaxweynaha Galmudug iyo Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir in doorashada iyo amniga hore lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Roble balse amniga guud xilligan aysan mudnayn in lagu wareejiyo waa sidii qabaane haddii amniga guud lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Roble halkaas waxa ku aanbaday madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii taasi aysan dhicinna waxa socon doonto saameyntii togneed ee doorashada ku lahaa Farmaajo oo qayladhaanta xoogan uu ka muujiyay ra'iisul wasaare Roble arrinta ayaa ah mid cakiran iyadoona beesha caalamka ay walaac xoogan ka muujinaysa kala aragti duwanaanshaha soo kala dhex galay golaha wadatashiga qaranka waxay beesha caalamka dhinacyadan culays ku saaraysaa in ay qaataan mowqif midaysan isla markaana marxaladda taagan xilligan wax looga gudbi karo oo xaala ay la yimaadaan xaaladda dalka xilliga ka dambaysa waa ka sii cakirnaanaysa iyadoo beesha caalamka culays weyn ka muujinayso khilaafka haatan mar kale iyo kala aragti duwanaanshaha soo kala dhex gashay madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Roble madasha wadatashiga qaranka qodobka ugu adag ee xilligan dooda ka taagan tahay waa amniga guud in dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Roble ayaana xilligan aad uga cabanaya haddii amniga aan lagu wareejin inuu soo dhaqaajin karin doorashada dalka in amniga dalka si guud lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Roble waxa mugdi badan sii gelinayso khilaafka haatan ka dhex taagan madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyagoona guddigu u xil saaray in ay ku sameeyaan afkambiga uu sheegay inuu dhacay 27 Diseembar sanadkii hore ay taliyaha ciidanka xoogga dalka ilaa 5 saraakiil oo ka tirsan ciidanka madaxtooyada ka dalbadeen in guddiga baaritaanka
isla markaana looga yeeray xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta. lama oga halka ay ku dambay doonto xaaladda, balse waxaa laga warsugayaa shirka golaha wadatashiga qaranka iyo miradhalka dhinacyada muddada fadhiyay kasoo bixi doona kulankoodii. dhinaca kalena banaanbax weyn ayaa maanta qorshuhu ahaa ee maamulka gobolka Banaadir salka ka riixay inuu ka dhaco caasimadda, waxaana wararka hoose ay soo baxay sheegayaan amar ka yimid wasaaradda amniga laga baaqsaday in waxyeelo dadka banaanbaxa dhigaya ay ka soo gaarto, maadaama ay sheegeen banaanbaxa lagu wargelin inuusan ka dhici karin caasimadda. mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho waxaa maanta kulan ay uga soo horjeedeen in dalka uu dagaal ka dhaco ku yeesho haweenka magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah isku soo baxan ay soo abaabuleen maamulka gobolka Banaadir iyo taageerayaasha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka dhacay maanta magaalada Muqdisho. isku soo bax oo ahaa mid ay dhigayeen kaliya haweenka kana dhacay hotel ku yaal magaalada Muqdisho, iyagoona haweenka ka qayb galay ay muujiyeen dareenkooda ku aadan xaaladda dalka iyo ismarwaaga siyaasadeed ee hadda jira. halku dhiga haweenku waxa ahaa dagaal maya doorashaha, iyadoona sidoo kale u muuqatay inay ku weerarayeen kulankoodan ra'iisul wasaare Rooble iyo midowga musharaxiinta xilli laga cabsi qabo in magaalada Muqdisho mar kale badbaado qaran ciidamada hadib ugu soo laabtaan. qaar ka mid ah haweenka hadla oo madasha ayaa cod dheer ku sheegay inay u baahan yihiin nabad, in laga fakaro mustaqbalka fog ee Soomaaliya. amni iyo nabad ayaan rabnaa, ilmaha dhamaanaya annaga ayaan dhalnay, ayay tiri mid ka mid ah haweenka hadlaysa ee kulanka. sidoo kale kulanka waxaa ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka, iyadoona fariin culus u dirtay madaxda ee dowlad goboleedyada ee ku shirsan magaalada Muqdisho iyo ra'iisul wasaare Rooble laguna baaqday inay xal gaaraan rasmiya. Batuulo ayaa sidoo kale sheegtay inaysan doonayn haweenka Soomaaliyeed in la baabi'iyo dowladnimada, sidoo kalena la baabi'iyo qarannimada Soomaaliya. dowladnimada in la baabi'iyo ma ogolin, qarannimada in la burburiyo ma ogolin, ayay tiri gudoomiyaha Batuulo Axmed Gabayre oo gabagabadii khudbad ka jeedisay goobta kulanka haweenka ay isugu yimaadeen. Soomaaliya hadda waxay wajahaysaa xaalad adag oo ka dhalatay muranka doorashooyinka, waxaana isha lagu wada hayaa natiijada shirka haatan ka socda Muqdisho ee golaha wadatashiga qaranka. haweenkan ayaa inta badan taageersanaa madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday, iyadoona golaha wadatashiga qaranka si degdeg ah loogu baaqay in xaaladda cakiran ay mowqif ka qaataan, isla markaana doorashada dalka la dedejiyo. markaana dowlad goboleedka Puntland ayaa ku dhawaaqday inay ku guuleysatay xabad joojin ay kala dhex dhigtay maleeshiyaad ku dagaalamaya deegaanka Sacmigaag ee ka tirsan Puntland. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo wafdi uu hogaaminaya ayaa ku sugnaa deegaanka Sacmigaag maalmihii dambe, halkaas oo ka wada hadallo ay ku bixinayeen nabadeynta beelo walaalaha oo ku dagaalay. wafdiga uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka ayaa gaaray 3 bishan deegaanka Sacmigaag oo halkaas ay ku dagaalameen laba maleeshiyo beelo walaalaha halkaa wada dega. mas-uuliyiintan ayaa carabka ku dhuftay inay ku guuleystaan in la sameeyo xabad joojin kadibna loo gudbiyo shirka nabadeynta, taas oo lagu dhexdhexaadinayo beelaha dirirtu ku dhex martay deegaankaasi. madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa hogaamin doona shirka nabadeynta ee biri ka dhici doona, kaas oo ay ka wada qayb gali doonaan dhammaanba isimada waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka, sida lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Puntland. deegaanka Beerta Dheer iyo sidoo kale Sacmigaag waxaa maalmihii dambe ka taagnaa xiisado iyo dagaalo ka dhacay beelaha walaalaha halkaa wada dego, iyadoona Puntland ay ku bixinaysa dadaalo xoogan. dhinaceeda Somaliland ayaa la sheegay inay ka qayb gali doonaan kulanka nabadeynta ah oo halkaasi ka dhici doono, maadaama ay tahay xuduudda labada maamul ay wadaagaan. Axmed Karaash madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaana sheegay in ay doorkooda Puntland qaadanayso sida shacabka dagaalamayo nabad iyo xasilooni lagu soo dhex dabaali lahaa, maadaama haatan abaaro xoogan ay dadka saameeyeen ku dhool dhulka miyiga iyo tuulooyinka. inta ayaanu ku soo afmeerinaa saaxiibayaal warkeena aad kala socoteen channelka wararka ee Warqad News TV. fadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaaro sii share garay, saaxiibadaada kala sii gaarsii, page-kan iyo YouTube-keenana ku soo biira. waxaan idinkaga mahad celinaynaa daawashada muuqaalka. tan iyo warka mid lamid inta kulmi doona nabadgelyo.